maraba inaan dib ugu noqdo xafladan inaan ka soo qayb galo sharaf bay noo tahay annaka waliba hawlo badan iyo doorasho iyo wax ku dhex jirna waxaanu ka maarmi weynay inaanu saaxiibkeen nala shaqeeyay muddo 3 sano nala joogay kor u qaaday ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ma aha qaybtan ramcada kaliya ma aha qaybihooda kala duwan noo fududeynayay wixii caafimaad aan uga baahno Turkiga noo fududeynayay wixii fiisa kale aan uga baahno tacliinta jaamacadaha kala duwan iyo xiriirka safaaradda Turkiga iyo muxuu ahaa ciidanka booliiska u dhaxeeyay oo maanta nala jooga annagoo sidaasay saasaan uga soo qayb sharaf weyn bayna noo tahay inaanu maanta xafladan ku sii sagootino 2 wiig ka hor waxaan tagay Turkiga waxaan u tagay hawlaha booliiska xiriirka booliiska iyo dawladda Turkiga gaar ahaan waxaan la kulmay oo si gaar ah ula kulmay ninka haysta hoggaanka ama hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Turkiga waxaan u sheegay dadka Soomaaliyeed meesha joogan cabasho ka maqmaqlay waxaaniyo ma garan weyday adigu nin Axmed Altaan oo kale inaad u soo dirsatid Soomaaliya calaaqaad kasta oo aad aragtaan oo hagaaga 2 qof baa bilowday hadda dib u noqotaan dawladda Turkiga iyo dawladda Soomaaliya in calaaqaadku heerka gaaro 10 sano ka hor waxa saldhigu ahaa madaxweynaha Soomaaliya ee waqtiga joogay iyo madaxweynaha Turkiga hadda markaa prime ministerka ahaa wada hadalkoodii ayaa maanta Soomaaliya halka soo gaarsiiyay iyo intii ka dambeysay sida awgeed annaka booliiska hadaanu nahay inaanu maanta halka soo gaarsiino waxana soo gaarsiiyay wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga oo wakiil ka ahaa Axmed Aytaan uu ka ahaa xiriirka aanu leenahay booliiska halka soo gaarsiiyay marka waxaan jeclaan lahaa inay immigrationka oo dhibaatooyinka hadartinay ka dhamaadaan Turkiga iyo Soomaalida inaad adiga iyo muxuu ahaa hay'adda socdaalka jinsiyadaha ee Soomaalida aad wada fadhiisataan aadna u soo dirto nin quality-giisa oo yaani nin aqoontiisa xirfadiisu diblomaasi weyn inaad u soo dirto Soomaaliya saasan kula taliyay markii si uu xalliyo mashaakilkii dhex taagnaa waxaan kaloo la kulmay Axmed oo hadda loo bedelay dalkiisii hooyo meesha loo bedelay ninkii xukumay oo kamid ah ciidamada jandarmeerga la yiraahdo ninka madaxda ka ah oo markaa aan kala u sheegay meesha isaga loo bedelay iyo nin cusub oo noo soo bedelay oo aan iriniyo ma iga hubtaa Axmed Altaan oo kale inuu ninkan yahay ma iga hubtaa wuxuu ii ballan qaaday ilana hadal siiyay sarkaalka loo soo bedelay halka oo Axmed bedeli doona oo uu yiri waa nin ka sii fiican marka waxaan iri adigu masraakiisha fiican baad xulataa waxaan ka rajaynayaa Axmed Aytaan dalkiisa markuu tago inuu noqdo safiirka Soomaaliya booliiskeeda u fadhiya dalka Turkiga waxaan u rajaynayaa meesha loo magacaabay oo hadda meeshii waaba la ii soo sheegay meesha loo magacaabay oo iyo dalku noqonayo ilaahay dalkiisa inuu ku nabad celiyo muxuu ahaa una fududeeyo mas'uuliyadda labaad ee hadda loo magacaabay waxaanu rajaynaynaa sarkaalka cusub ee imaan doona waanu telefoon ku wada hadalay inaanu muxuu ahaa isagana ku soo dhaweyno ulana dhaqanno sidii aan adiga kula dhaqmi jirnay waxaan kaloo rabaa in halku soo dhaweeyo oo aan dadka badidiisa aqoon safiir ku xigeenka safaaradda Turkiga oo hadda nala fadhiya oo dalka ku cusub aan u maleynaya muddo gaaban inuu joogo iyo saraakiisha la socota oo diblomaasiyiin sarsare oo safaaradda ka socda iyagana waxaan rajaynayaa inay si fiican aan u wada shaqeyn doono kuna soo dhaweyn doono dalkeena hooyo midda xigta waxaan run ahaantii waa mahad celinaynaa walaalaha Turkiga isgarab taagga ay garab taagnaayeen runtii maxaan ku yiraahdaa dib u yagleelidda iyo dawlad dhisidda Soomaaliya qaybaha kala duwan maaha kaliya ciidamada booliska dhismahooda laakiin taageerada ay siyaasadeed dhaqaale military ee garab taagnaayeen mar walba walaalahan Turkiga runtii waxay noo qabteen qof noo qabtay ma jiro qof noo qaban karana ma jiro waana strategic partnership ka aan leenahay weeye walaalahena Turkiga
waana inkaga mahad celinaynaa isgarabtaagiina marka labaad waxaan rabaa inaan u sheego walaalaheena Turkiga shacab ahaan iyo dawlad ahaan inaan aad ugu qanacsannahay shaqada ay noo hayaan iyo garab istaagooda waxaan run ahaantii aan uga fadhinaa intaas inay ka sii laban dadaalkooda ku aadan wuxuu qabashada shacabka Soomaaliyeed ee walaalaha yihiin waxaan kaloo si gaar ah ugu mahad celinayaa Axmed Altan oo runtii si dhow ula shaqeeyay ciidamada booliska iyo wasaaradda amniga gudaha waxaan kaloo uga mahad celinayaa ciidamada booliska hogaaminaya taliye xijaar sida qiimaha leh ee u maamuuseen Axmed Altan waxaana ku dhiirigelinayaa inay qof kasta oo Soomaaliya wax u qabta saasoo kale loo maamuuso waxaan hadalkayga ku soo koobayaa walaalayaal walaalaheena tihiin waa mahadsantihiin Axmedna waxaan u rajaynayaa Axmed Altanna waxaan u rajaynayaa shaqadiisa kale loo dhiibay in Ilaahay u fududeeyo gurigiisii labaadna way Soomaaliya gurigiisii koowaadna waa Turkiga inuu shaqadiisa xagga Ilaahay u fududeeyo oo waxaan leeyahay midii guuleysata Allah ka dhigo wiilkan ninka ama gabadhan lagu soo bedelayna waxaan ku soo dhaweynaynaa laab furan iyo farxad waji farxadeed